waxaan soo socday marka cashirkeena la dhahay passage 10 ahay passage soo sheegna waxa ahay sheeko ama curis qoran isla markaasna laga hadlayo dad ka hadlo waxyaabo kale ka hadlo yani curis qoran oo laga hadlayo isla markaasna buugeena noo dul saaran ahay maanta ciwaanka aan ka qaadanayna marka waxa la dhahaa the two carpenters cashirku waa continue horena uu noogu soo socday the two carpenters maxaa soo sheegnay hore hal mar islaam maxaa soo sheegnay farsamo yaqaanada laakiin farsamo yaqaanada maxay sameeyaan waxay u qaastaa inay sameeyaan alaabta jiifka iyo miisaska iyo yani wax guryaha la dhigto ay u qaastaa kaliya baabuurna ma ka hadlayno guri dhisowna ma ka hadlayno carpenters daa maqash maxaa waaye yani wax la kawanaa alwaaxmanka alaabta lagu sameeyo ha noqoto alaabta jiifki ha noqoto wax loo yaqaan miisaski kuraasti iyo wixii lamid dadka sameeya waxa loo yaqaan carpenters iska sala maxaan galnaa marka the two carpenters labadii farsamo yaqaan oo alaabta sameey jirta cashirkeenu uu noo soo socdo marka maanta meeshiis ugu dambeeyay noo soo gaaro oo ahayd waxaan dhahaynay ashirku wuxuu qoseeyay laba wiil oo lahaayeen dukaan ku lahaayeen wadada Makka al-Mukarrama dhahaynay macaamiilay marka wax ka iibinayeen maxay ka iibinayeen alaabtay macaamiishu u sameynayeen ayaga ugu sameynayeen wax loo yaqaan dalab ayaga ugu sameynayeen waxaan dhahaynay marka laba qof oo imaaday wiil iyo gabar oo imaaday gabar maxay dalbatay waxay ka dalbatay mid kamid ah labadii wiil oo Nuux iyo Kaamil la dhahay waxay ka dalbatay miisay ka dalbatay mid kale wuxuu ka dalbaday sariir oo ka dalbada asigan sariirada dalabka marka labada wiilaa kala qaadeen Nuux iyo Kaamil kala qaadeen maanta waxaan arkaynaa marka dalabkii la qaaday oo loo soo laabanayay yaa shimee helayaan seesu ku helay mid kasta qaab nooc ku helay ma ku qancay mid kasta dalabkii oo qaatay oo wixii loo sameeyay ma ku qancay ma ku qancin maanta fiirinayna markay soo laabteen marka fiiri one week later hal isbuuc kadib one week later hal isbuuc kadib markay soo laabteen Masteresa Kaltuuma gabadhii la dhahaayay Masteresa Kaltuuma come to way imaado to pick up si u qaadato hair table miiskeed way imaaday si u qaadato hair table miiskeeda si u qaadatay imaada fast markii ugu horeysay horta ay soo gashay dukaankii she was in shock way naxday sababta ay u naxdeen wax kale maana yani dalabkii ku qanci way sameeyna waa ku soo socotaa she was in shock way naxday then kadibna she became angry way xanaaqday dan kadib maxaa she became angry way xanaaqda haddana kadib maxaa dhacay waxay dhahday what's this waa maxay kan waxaan maxaa miiskii ku qanci la aadamina SMS what is this waa maxay kan aad ii samays qaankiisii ku qanci la aada wax kale ma aha markaas waxay dhahday she cried haddana way ooysay waliba xanaaqi iyo naxdinti iyo hadallada la yaab kale kuma sii daranay she cried way ooysay markaas hadalladan soo socday ku qaylisay iyadoo dhahayso the legs lugaha are of different lengths way kala dheer yihiin miisku lugihiisa maxaa way kala dheer yihiin ay dhahday kadib maxay dhahday everything wax kasta la saarana will fall way dhacayaan of this table miiskan wax kasta miiskan la saarana maxay dhahday way dhacayaan ay dhahday ama way daadanayaan markaas Kaamil haddana marka wuxuu sameeyay start wuxuu bilaabay making inuu sameeyo ana table miiska shaqadiisa dib u bilaabay muxuu bilaabay la Kaamil inuu sameeyo miis kale oo bilaabo haddana kadib one week after hal isbuuc kadib haddana Nuux wiilkii la dhahayo labaad ayaa started wuxuu bilaabay making inuu sameeyo debad sariirtii macaamilka labaad oo Kaamil dhahay Kaltuuma gabadha la macaamilka labaad sariirtii uu soo dalbaday oo bilaabay inuu sameeyo كده محار عاي دمان نينكي سرت لو سمينا يروح لو يقع سرت لو سمينا كم توي متكلكت سي وقات هسبت سرتي سي وقاتو إيمان هسبت سرتي سي وقاتو يعني وو إمادي كده محار عاي later week محار عاي later أنت أسكدب كامل ماي one week later هالأسبوع كدب ماكن سي وسمي سرت لو سمي وقاتي دمان نينكينا كم توي متكلكت سي وقات هسبت سرتيسا this wonder وحود أمريكا كانوا ولا ياب سرتي ولا يابان سيد لو قرحي ولا this wonderful تنوي ولا ياب he said وحكير تنوح وهذا الكاسكير أسيقا سيدا هاي ويري حدانا and you have a worked وحدوش قايزة very carefully ست حدر لنا وأوش قايزة يعني سوى ناكسنا أوش قايزة there are واحد جرورة استرانج بالتس بولا الحب بدنا جران بولا شاسو استرانج بالتس جران وده بولا الحب بدن to hold the bed together كواسا سريرته اسكو علنايان بولا الحب بدنا أوصل ما يصير أو سريرته اسكو علنايان المستقيم فاونديشن waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab
adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday. Waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo, weliba agoonta waa laga dardaarmay. Shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa.